tahay asalad haweeno aynigaada oo kale uma narag adduunyadan ininka dhameys waxaan wanaagsan daawadayaasheena qiimiga badan oo ku soo dhawaada qaybta saddexaad ee sheekada tixanaha noo ahayd isla markaana la magac baxday Jamasho waa sheeko jacayl oo dhab ah waxaana qoray oo qalinka u qaatay al-ustaad Axmed Diiriye Afrax qaybtii labaad ee sheekadan waxay noo mareysay Cabdirashiid oo sii kobciyay ganacsigiisii yaraa isla markaana ku soo daray cabitaankii uu wadada dhinaceeda ku iibinayay cunooyinka fudfudud sida saambuuska burka bajiyaha iyo waxyaabo kale oo uu ku ballaariyay sandaqadii uu cabitaanka ku iibin jiray waxa uu dareemay farxad maadaama habeenkii marka uu guriga ku laabanayo uu wato lacag uu ku qanacsan yahay maalinba maalinta ka dambeysana uu dakhligiisa sii kordhayo qaybta saddexaad ee sheekada waxay ku bilaabanaysaa sida tan Cabdirashiid kalama uusan jeclayn inay arkaan gabdhihii iskuulka ay isla dhigan jireen iyo kuwa xaafadda ay isla degan yihiin intaba maxaa yeelay mawjadaas kol hore ayuu iska soo xiray hooyo xaawo oo ahayd Cabdirashiid hooyadii ayaa aad ugu faraxday isbeddelka uu wiilkeeda ku soo kordhiyay noloshii qoyska iyo horumarka ganacsi uu maalinba maalinta ka dambaysa ku sii tallaabsanayo maadaama uu Cabdirashiid yeeshay diilo dhanka nolosha ah oo uu tartiib uga soo kabtay rajabeelkii quusta ahaa ee uu ku sugnaa muddadii 2 sano ahayd isla markaana uu ahaa Bagamondo haatan wuxuu ku sii fakarayaa inuu sii sameeyo horumar ballaaran oo uu ku sii kobciyo ganacsigiisa yar si uu u gaaro yoolka uu nolosha ka leeyahay Cabdirashiid waa wiil isku darsaday qurux istayl iyo dabci macaan bashaashnimo sababtay inuu kasbado macaamiil aad u fara badan haba ugu badnaadeen gabdho dhalinyaro ah oo inta badan xilliga ay iskuulka ka soo rawaxaan isugu imaan jiray cabitaankiisa iyo cunooyinka fudfudud ee uu ku iibinayay halkaas qaar badan oo ka mid ah gabdhaha ayaa markii ay macaamiil joogto ah u noqdeen isaga waxay bilaabeen inay ku nastaan agtiisa oo ay taalay kuraas oo ugu talagalay macaamiisha cunada fudud ka cunaysa inay ku fariistaan iyagoo halkaas ugu soo jeedinayay gabdhaha waaye ammaan iyo dhiirigelin maadaama uu yahay wiil dhalinyaro ah oo wax bartay haddana aanan iskala weyneyn inuu cabitaan ku miiro meel wadada agteeda ah oo had iyo jeer ay ku soo maraan asxaabtii xaafadda iyo kuwii iskuulka ay isla dhigan jireen iyo kuwa kale oo fara badan inta badanna way ugu hambalyeyn jireen ganacsigiisa yaraa ee sii kobcayay maalinba maalinta ka dambaysa Sucaado oo ahayd gabar ka mid ah macaamiisha sida joogtada ugu xiran cabitaanka Cabdirashiid uu ku iibinayay wadada dhinaceeda ayaa waxay u qaaday jacayl xad dhaaf ah oo iyada kaligeed ku kooban waxay timaadaa goobta maalin walba iyadoo cabitaan iyo saambuus ka dalbata inta ay cunayso indhaheeda marna kama jeediso Cabdirashiid oo ku mashquulsan u adeegida macaamiisha kale ee aadka u xiiseynaya goobtiisa ganacsi oo ay ku jeclaadeen cabitaan macaan cunno fudud oo dhadhan macaan leh iyo waliba xagga nadaafadda alaabta iyo halka uu ugu adeegayo macaamiisha Sucaado ayaana maalinba maalinta ka dambaysa waxa ku sii kordhayay jacaylka ay u qabto Cabdirashiid daawadayaasheena qiimiga badan waxaan inta ku soo afmeerayaa qaybta saddexaad ee sheekada la magac baxday Jamasho waa sheeko jacayl oo dhab ah waxaana qoray oo qalinka u qaatay al-ustaad Axmed Diiriye Afrax fadlan haddii aad nagu cusub tahay subscribe
channelkan Pakistan Media kuna dhufo calaamadda gambaleelka ah si aad u hesho qaybaha xiga ee sheekada. sidoo kale waxaan ka codsanaynaa inaad commentiga noogu reebtid qaybta commentiyada wixii talo iyo tusaalahan aad ku soo biirisid sheekada. la soco qaybta afraad ee sheekada insha Allah. ifka inta kunnool dumar hadalka ishaartay haygu diidin adiguna ila hori caashaqa aqalayad leele ila hori caashaqa aqalayad leele ila hori caashaqa